Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiina. Kusoo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo alaab yar oo aad wajigayga i naasibtay iyo wanaajisay. Waxyaalo badan aan ka dareemay oo qurux badan ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Waxaa weeye wax kale maahan waa baradho. Baradhadan aad bay u wanaagsan tahay wajiga dadka way cadaysaa, way nadiifisaa, madmadowga, haaraha waxaas oo dhan way kaa beenaysaa. Marka waatan xabad baradho ama soo qaaday waan soo hoolay. Markaan soo hoolayna waxaan sameeyay waan soo shiiday. Shiinka ama mashiinka cabitaanka ayaan ku soo shiiday. Laba nooc waa nooc yar iyo nooc labada ku shiidan kartaa. Saas markaa u soo shiiday aan soo hoolaan soo dhameeyayna waa tan saane soo baxday. Labadan baaquli iyada igu kala jirta. Midda baaquliga cad igu jirta waa iyadeen alaabihii wixii aan rabay inaan ku darsado ku darsaday. Midda kale alaabta caaga oo buluug igu jirta waxaan rabaa talaagada inaan gashto. Iyadana weli wax ma ku daran waa u jeedin weli baradhada midabkeedii ayay leedahay. Horta biyo caadi ay ku karsanaysaa wax kale lagu daray ma jiraan laga yaabaa istiraatiiji tiro maxaa lagu karinayaa. Dadka qaar waxaa jira markay wax sameynayaan rose water iyo waxyaalahaas ku karsada ama ku samaysta laakiin biyo caadiya oo biyo ku yaala ku samaysanaysaa. Marka waxba war ayaan idinku daalina waxaa jirta baaquliga cadaanka ah inta aan rabo hadda inaan marsado ama aan marsanahayba ayaa igu jirta. Marka waxaan ku darsaday caano. Caanaha noocaad istid waa isticmaali kartaa. Nooca rabtid waa isticmaalaysaa. Waxaa ka wada nooca rabtid isticmaalaysaa dhanaan, yogurt waxaa doontid ku darsanaysaa. Lagisa waxa u fiican caanaha inaan qasatid koodheeda ama boodarka. Ama sidoo kale hadda yogurt asatidna aad yogurt ku darsatid. Markaas labadaas ugu fiican. Talabaadna waxaa jirto kala duwan inaan ku darsado. Waxaa weeyaan halkaas bash buluuga waxa igu jira akhtarka baan la soo akhtarka ah. Waxaa weeyaan dacar weeyaan. Dacartana iyada saa loo socotaan ba aad u wanaagsan tahay u fiican tahay masha Allah weeyaan. Waxaa kaloo jirta dacarta waatan hadda soo qaaday. Fiidiyowga markii hore ayaan sameeyay ka bacdina codka waa dul saaraya. Markaas iga raali hada insha Allah sanqadha xaafada xaska baxaysa markaas darteed codka dul saaraya. Marka waxaa jirta oo ku darsado dadka qaar waxaa jira limon bay ku darsadaan ama liin dhanaan si aad taqaanid. Markaas aniga limonta xasaasiyad baan ku leeyahay oo maxay tahay ma jecli. Markaas labadan aan ku darsaday dacarta hadda heli kartid. Dacartan waxaa samayn kartaa dacarta caadiga oo la jinaarka hadda heli kartid iyada qudheeda ku darsan kartaa. Haddii kale heli karina wax kale ku darsan kartaa. Imika oo kale yacni wajigaaga hadduu saliid leeyahay dacarta ku fiican iyo yogurtka. Haddii aanad saliid lahayna waxaa kaloo kuu sheegaya waxaad ku darsan kartaa faytamiinaadka saliidda leh. Markaas waxaad kaloo ku darsan kartaa saliid la yiraahdo saliid qarwac waa ku darsan kartaa. Markaas faa'iidooyinka haddii aan ka hadlo faa'iidooyinkeeda aad u badan yihiin alaabtan. Wajiga haaraha leh finanka madmadowga kaaga tagay. Sidoo kale wajigaaga hadda rabti inuu ku cadaado nadiif ku noqdo. Baradhada aad buu wajigu cadaysaa nadiif bay ka dhigtaa. Maxay ahayd tolo madmadowga qashinka daldaloolka way ka xiraysaa. Haddii wajigaaga daldaloolku furan yahay oo saliidda wajigaaga ku badato. Sometimes wax dhacdo qofka wajiga saliidda kule in wajigu daldalool u sameeyo ma fahanteen. Way xiraysaa masha Allah bay ka dhigaysaa. Waxaa kaloo jirta dacartan aad bay u wanaagsan tahay. Dacarta sometimes hadda heli kartid iyadana waa marsan kartaa. Aad iyo aad bay u wanaagsan tahay iyadana. Markasta waa isticmaali kartaa. Qof daawo marsado iyo qof kale alaabtan waa alaab dabiici kala arag bay ka dhigaysaa. Marka insha Allah iga raali hada. Iga raali hada codka ciyalkayga buuqa marka fiidiyowga inta soo ku eegyahay insha Allah soo tijaabiya wax fiican ka arki doontiin.